Soliana Shimalis oo ah afayeenka komishinka doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa sheegtay in wax doorasho aysan ka dhici karin magaalooyinka Addis Ababa, Diridhaba iyo dawladaha hoose xilligii hore loogu qorsheeyay oo ku beegan dabayaaqada sanadkan. Waxay arintaasi ku dartay inaysan dhamaystirnayn xubnihii gudiyada komishinka isla markaasna aan weli la ansixin sharciga dib loo habeeyay ee doorashooyinka dalka Itoobiya. sidaasi daraadeed ayaysan wax doorasho ah uga dhici karin magaalooyinka Addis Ababa, Diridhaba iyo qaybo kamid ah dalka Itoobiya ilaa laga dhamaystiro isbedelka komishinka doorashooyinka oo ay sheegtay in kaliya la keenay gudoomiye cusub balse xubno kale oo gudiga ay tahay in iyagana dib loo dhiso. Marwa Fawziya oo ah gudoomiyaha gudiga sharciyada iyo dimuqraadiyadda ee golaha baarlamaanka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay hadalka ka soo yeeray komishinka doorashooyinka, waxayna sheegtay in komishinku uu dhisan yahay gudoomiye cusubna loo keenay isla markaasna ay tahay inay shaqadooda gutaan. Fawziya ayaa tiri haddii ay jirto cid leh komishinka doorashooyinku ma dhisna, anagu waxaan ognahay inuu dhisan yahay. waxaana waajib ku ah gudoomiyaha komishinka ee cusub Burtukan inay la shaqeyso xubnaha kale ee gudiga iyo komishinka oo dhamaantood dhisan. haddii loo baahdana in cid kale lagu soo daro waa shaqo u taala hay'adda sharciga balse ma jirto sabab loo baajiyo doorashooyinka ayay tiri. Marwa Fawziya ayaa sidoo kale sheegtay in sharciga dib loo habeeyay ee doorashooyinka gudigeeda loo soo gudbiyay iyadoo hal maalin ka hadhay fasaxii baarlamaanka, taasina ay dib u riday ansixinta. waxayna intaasi ku dartay inay mar kale casuumaad u dirtay dhammaan qaybaha ay khusayso si looga doodo balse uu ka qaybgalku aad u hooseeyay. Marwa Fawziya ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay 25 Maaj horgeynayso baarlamaanka dooda sharciga dib loogu habaynayo doorashooyinka isla markaasna ay ku casuumtay dhammaan cid ay khusayso, waxayna ku goodisay in sharciga la ansixin doono isla toddobaadkan xitaa haddii ka soo qaybgalka ururada iyo cid ay khusayso ay hooseyso. arintani ayaa noqonaysa caqabad kale oo soo korodhay, waxaana muuqata isfahan la'aan ka dhex taagan komishinka doorashooyinka iyo gudiga sharciga ee baarlamaanka dalka Itoobiya. waxaana cadayn sida laga yeeli doono doorashada guud ee dalka Itoobiya oo muddo kooban ay ka hadhay. dhanka kale lama saadaalin doono waxa ay yeeli doonaan qoomiyadda Axmaarada oo iyadu aaminsan in maamulka hadda magaalada Addis Ababa ka jira uu yahay mid sharci darro ah.